madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftagareen ayaa si adag uga hadlay dadka laga raafayo lascaanood ee gobolka Sool ee Somaliland. Haddaba madaxweynuhu hadalkiisa sii wata ayaa fariin u diray xukuumadda Somaliland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii foosha xumayd ee labadan beriba socotay ee ka dhacday maamulka Somaliland gaar ahaan magaalada Laascaanood oo ahayd dhacdo aad iyo aad u fool xun oo aan dhaqanka islaamka iyo dhaqanka bini'aadanimada midnaba aanan ku jirin oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan oo adduunyada joogaba ay falcelin badan ka suubiyeen ayna aad uga xumaadeen dadkaas sida loo xaqiijiyay boqolkiiba 90 waa dad ka soo jeeda koonfur galbeed una tagay meesha inay si bini'aadanimo leh ay uga shaqaystaan nolol ka suubiyaan ayna u tageen in ay nabad ku helaan nabadna ku noolaadaan ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyey aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay waana cambaaraynaynaa wax aan filaynayna ma aha wax dhaqan bini'aadanimo lehna ma aha intaas kadib waxaan u soo jeedinaynaa maamulka Somaliland dadkaas muwaadiniinta ah oo Soomaaliyeed oo ka soo jeeda koonfur galbeed oo dad muslim ah haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini'aadanimo leh ayagii ilmahooda yaan la kala rarin ayagii xoolahooda yaan la kala rarin nin saaka gurigiisa ka soo tegay asoon ilmaha ku noqonin yaan la raafin oo baabuur la saarin inta waqti la siiyo shalayba ayagaa yimide hal yiraaho walaalayaal naga noqdo hal yiraaho laakiin si dhaqanka bini'aadanka ka baxsan yaan lagu suubinayaan leeyahay aan soo jeedinayaa waxaan sugaynaa haddii ay bini'aadanimo jirto maamulka Somaliland iyo maamulka Laascaanood inay jawaab degdeg ah naga siiyaan dadkaas qaabkay u rareen qaladka ka jiro iyo xoolahoodii meeluu ku dambeeyey iyo xuquuqdii iyo asaasiga ahaa ay ku lahaayeen deegaanadaas inay helaan ilaa ay hadda waxaan maqlaynaa inay ficiladii guraacnaa ay socdaan oo dadkii hooyo iyo cunugeeda la kala raafayo aysan weli joogsanin oo dareenka dadka Soomaaliyeed iyo dareenka ummadda dhan ay soo jeediyeen aan hal marna aanan wax isbedela aanan lagu samayn waa arrin aad looga xumaado waxaan codsanaynaa marka maamulka Somaliland inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan dadkaas muwaadiniinta ahna haddii la soo raraayo ayagii hantidooda aan la kala rarin ayagii ilmahoodana aan la kala rarin si xornimadii ay shalay ku tageen maanta ay ku soo noqdaan waxaan u mahadcelinaynaa maamulka Puntland oo runtii dareen bini'aadanimo suubiyey oo maamul iyo dawladba shacab iyo dawladba uga mahadcelinaynaa sida ay ugu gurmadeen dadkaas walaalahooda ah muwaadiniinta ah oo la dhibaateeyey sida ay ugu gurmadeen oo u soo dhaweeyeen oo u dajiyeen ayagana waa uga mahadcelinaynaa ugu horeeyo madaxweynaha ilaa iyo maamulkiisii shacabkiisaba aad iyo aad ay u mahadsan yihiin tilaabada kale oo ku xigtoon qaadayna waxay tahay maamulka waxaan u xil saarnay guddi ka kooban 5 wasiir oo arrintaas sida ugu dhaqsaha badan u sameeyo baaris tagana goobihii ay waxaan ka dhaceen si dadkii gurmad iyo badbaadaba ay u helaan una gurmado una badbaadiyaan 5taas wasiiraan u saarnay waana soo baxeen shaqadii bay bilaabi doonaan waxayna ka shaqayn doonaan sidii dadkaas loogu gurman lahaa dib u dejinna loogu samayn lahaa deegaanadoodina loogu soo celin lahaa ninkii meesha uu joogo ku qanacsanna nolol loogu raadin lahaa ninkii deegaankiisa ku soo noqonayana dib u dejin loogu samayn lahaa
annagaa diyaar la ah inay deegaanadooda ku soo noqdaan wax alaaliya wixii oo ku baxayo oo lagu soo rarayana diyaar aan u nahay wafdigaas wasiirada ahaana ka shaqayn doono oo 5 wasiir ka kooban wasiirka arrimaha gudaha wasiirka qorsheynta wasiirka gargaarka wasiirka gaadiidka iyo wasiirka caafimaadka wasiiradaasna waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan inay u bilaabaan dadkaas sidii loogu gurman lahaa ayna u tagaan goobaha ay joogaan dadka iyo waxay qabaanna ay jawaab degdeg ahna naga soo siiyaan gurmadna ay soo suubiyaan markii intaas laga tago waxaan rabaa inaan u mahadceliyo cid kasta oo ay ficilkan guracan ay dhibtay oo ka falceliyey ama dareenkooda ka sheegay inay ka xun yihiin aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waxaan codsanaynaa beesha caalamka dowladda federaalka Soomaaliya ganacsatada Soomaaliyeed cid kastoo wax garanayso cid kastoo wax Ilaahay siiyey in dadkaas gurmad degdeg ah loo fidiyo sida ay dowladda Puntland ugu gurmatay in loogu gurmado talaabo degdeg ah oo loogu gurmanayna la qaado Subeer Maxamed Maxamuud Subeer Galeyd wararka Iftiin Somali TV